بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijkan oo si toos ah idinkaga imaanaya stuudiyahan ku leenahay magaalada London. Barnaamijkan waxaa idiin soo gudbinaya iskuulka GlobalNet waxaana uu ku saabsan yahay wacyigelinta iyo faahfaahinta xagga IT-ga. haddii aad ku cusub tahay IT, haddii IT waxaa ka soo dhigatay, haddii aad jeceshahay mustaqbalkana IT ku takhasusto, ama haddii ehelkaada familkaada u baahan yihiin in IT ay bartaan, waxaan rajaynayaa barnaamijkan inaad in badan ka faa'iidi doontaan insha allahu tacaala. ugu dambeynta waxaan u soo gudbi doonaa qaybta su'aalaha iyo jawaabaha. haddii aad su'aal qabtid oo maskaxdaada ku taagan, fadlan hadhow waxaad samayn kartaa inaad noo soo gudbiso, hadday noqoto iyadoo cod ah ama haddii ay noqoto iyadoo qoraal ah intaba. waxaan isku dayi doonaa insha allahu tacaala hadduu ilaaha idmo in su'aalihiina dhammaantood aan halkan uga jawaabno idinkoo qanacsan oo jawaabihii aad u baahnaydeen helay in aan sessionka markaa aan soo gabagabayno. barnaamijka waxa uu noqonayaa qaybta koowaad in aan soo gudbiyo warbixin kooban oo ku saabsan qofka IT bilaabaya, meeshuu ka bilaabayo, waxyaalaha looga baahan yahay, iyo information badan oo ku saabsan macnaha dhinaca. saa ujeedaan macnaha sawirkan isaga ah waxaa idinkaga muuqanaya data macnaha center. so waa maxay data center? dad badan oo IT aan ku shaqayn ama dad badan aan tegin meelaha noocaas oo kale is difficult for them to learn the concept of data center iyo qaabka u shaqaynayo. but ardada ka baxda iskuulka in badan oo ka mid ah waxay ka shaqeeyaan data centers noocaas oo kale ah iyagoo ah markaa admins ama network engineers ama cloud ama security ama qaybaha kale oo markaa IT uu leeyahay. one day insha allahu tacaala haddii aad ku cusub tahay IT oo aad dadaashid, waxaan rajaynayaa in aad ka mid noqon doontid tiimka isaga ah aad ku beri doontid. topican isaga ah oo hadda aan qaadan doono saad ujeedaan wuxuu ku saabsan yahay how to start macnaha iyo career macnaha in tech macnaha sector right now. Why right now? Because now the sector is booming, because there are a lot of plenty of IT jobs, because معناها the companies are in demand to get معناها people with the right skills and right معناها knowledge. So now is the time to change معناها your career, especially in IT. If you love IT, if you have passion for it, then don't hesitate and do not wait, just معناها jump on and start the IT معناها career. and reasonka waa idin sheegaya hadhow dhowr qodob oo muhiim ah oo aan idin macnaha leeyahay waxa ugu wacan qodobka iyo qodobka. and I have been teaching IT for last macnaha 20 years, 20 plus years I believe, and I never seen macnaha the market sector oo IT-ga sida maanta uu yahay. waxaan dhihi karaa maanta waa markay ugu badan tahay dhinaca IT-ga xagga shaqooyinka, xagga helidda macnaha shaqo si fudud weli aad iyo aad u fudud qofkii ilaahay u waafajiyo oo isagana uu la yimaado dadaal iyo runtii determination. maxaa ugu wacan inuu maanta IT sector u noqdo booming? waxyaalo badan ugu wacan aan qaadan doono within topican gudihiisa insha allahu tacaala in badan ku fahmi doontaan. iyo hiya macnaha to change your career in IT, yeah, and that's good, but in order to do that waxaad u baahan tahay a lot of other macnaha skills. learning IT itself alone kaligeed macnaha runtii enough ma aha. markaad u baahan tahay to change your career macnaha to get a professional macnaha career waxaad u baahan tahay set of skills. and in this diagram macnaha waxaan kusoo koobay skillska ugu badan ee qofka looga baahan yahay in laga helo markuu IT uu u baahdo inuu ku shaqaysto ama inuu macnaha ka dhigto macnaha profession. and now you are ready to change macnaha your career, but you need to sit down, yeah, you need to sit down and write down macnaha your current skills, yeah, the knowledge you have at the moment, the qualifications, the education, yeah, the skills macnaha you already gained macnaha in other maybe other jobs you had. and then after that inaad ka fikirtid, okay, what sort of skills you are required to learn in order to macnaha join the tech sector, and also what sort of skills do you have right now that you can use for IT as well, because a lot of skills they apply to IT and they apply to other sectors as well. just right now I met one of the guys macnaha who came to the office and I sat with him
and he's already in another profession, IT. So I said to him, if you work hard, you can get a job within short time, maybe 4 or 5 months. And the reason because qofka already wuxuu watay set of skills, yeah, teamwork, معناها communication, problem solving, maxaa dhahdaa using initiative, معناها can assess. And I said to him, all what you need is to learn معناها some skills or IT, and then definitely you can use maxay your current skills hadda aad leedahay in order to change and get into IT sector. But some people are not like that. They are new, they are fresh, yeah? They need to learn a lot of different skills. So there's no one set of rule for everyone, yeah? Dadka oo dhan isku wada mid ma aha. Qof walba waxa uu leeyahay macnaha waxyaalo isaga u gooni ah. That's why here at GlobalNet, معناها we customize, yeah, our courses and our معناها advice based on the person. So there's no one solution that fits maxay everyone. So hadduu qof noo yimaado, we assess, yeah, and waxaan ku dhahnaa waxa u baahan tahay this and that and that. Qof kale hadduu noo yimaado, maybe inuu u baahdo more than that, because labada qofood skillskooda, aqoontooda, xirfadooda isku mid ma aha. So hadduu saaxiibkaa shaqo ku helay 3 bilood, that doesn't mean adna waxa ku helaysaa maxay 3 bilood. Maybe qofka saaxiibkaa wuxuu watay additional skills u saamaxaya inuu si dhaqso ah ku sameeyo maxay change ama uu ku sameeyo isbedel. Laakiin it's okay, adiga hataa waad baran kartaa, dhibaato ma aha. Yeah, maybe inay kugu qaadato in yar in ka badan saaxiibka intay ku qaadatay, laakiin definitely if you stay, if you focus, if you determine معناها and reserve, definitely one day adigana waxaa samayn kartaa maxay isbedel ama change معناها kala mid ah. So saalkan ujeedaan waxaa u baahan tahay first you need to show معناها interest, yeah, and that's very important, yeah. If you don't have a passion for IT, if you don't like IT, then of course معناها it's difficult in IT samaysid. So qof walba oo u baahan inuu IT barto, there must be interest. Ma aha kaliya IT, that applies to all other subjects, yeah. haddii wixii aadan jecel u haynin oo aadan interest u haynin ma baran kartid haddii lagu qasbayo. That's why number one. And also waxaa u baahan tahay to have a vision, yeah. ما aha kaliya معناها jump on معناها maxaa dhahdaa IT course and just do the course and after you finish you don't know what to do, yeah. You must have a clear معناها vision, and that's what I say to the student, and that's what we deliver within our معناها maxaa dhahdaa with our courses. We don't only teach IT, but we teach also معناها qofka mindsetkiisa, maskaxdiisa inuu change ku sameeyo. sababtoo ah no matter qofka waxa aad bartid, yeah, ilaahuma bartid معناها all IT skills, qofka haddii maskaxiyan, yeah, mindsetka hadduusan diyaar ahayn weligii malma tagaayo. So waxaa u baahan tahay inaad qofka maskaxdiisa, mindsetkiisa bedeshid. And that's something we include معناها our courses, and that's why alhamdulillah a lot of معناها GlobalNet students ay u noqdaan successful, ay u guulaystaan si fudud oo marka ilaahay uu waafajiyo wadada saxda ah. So vision is very important. So what is the vision? Vision, you need to معناها know measure at hadda taagan tahay, where you are and where you want to go. Yeah, you want to get a job. Yeah, but you need to visualize. You need to have a vision. Yeah, you need to have a long term and معناها short term معناها goals inaad leedahay oo iyadana kamid ah waxyaalaha halkan aan uga hadlayno. Visionka it could be inaad koorsooyinka aad qaadatid and get a job. The vision could be inaad maxaa dhahdaa koorsooyinka aad qaadatid and go to uni, or maybe both, yeah, and also samayn kartaa both. And I know some people who managed معناها to do that, yeah, oo koorsooyinkan qaatay kadibna shaqo ku helay ama jaamacadda aaday ama isku dhex waday intoodaba. waxaa u baahan tahay skills. ma ka hadlaya kaliya IT skills, waxaan ka hadlaya different types of skills, yeah, waan qaadan doonaa, way ku dhigan tahay qaybta soo socota. So waxaad u baahan tahay technical skills, and also waxaad u baahan tahay other soft skills, and that's very important. And a lot of people, they underestimate معناها how important the soft skills is, yeah. لأن haddii technical skills aan leedahay لكن you lack in communication or teamwork or معناها maxaa dhahdaa organization iyo waxa la midka ah, way kugu adkaanaysaa hadhow inaad si fudud shaqo ku heshid. So while you are doing the courses, yeah, you need to develop, yeah, and enhance other skills oo muhiim ah. That's why hadda u dhahay you need to assess yourself. Sit down and write down all skills you have, technical and non-technical. If you identify some of the skills are not that good,
then waxaa samayn kartaa have a plan معناها to enhance معناها the skills you want. So by the time you finish معناها the courses within 6 months or كله, within a year or كله, you'll be ready معناها to go and get your first معناها IT job, and you don't have to spend additional معناها time. So الآن waxaan ka hadlaya English oo kale. Haddii Englishkaada uusan ahayn معناها good enough, then waxaa samayn kartaa while you're doing the courses معناها enroll for another English معناها class, yeah, and build your communication in that way. haddii aad ku xun tahay time management oo kale, while you're doing the classes معناها enroll time management معناها course, yeah, maybe online, and by the time you finish you are ready and you know how to manage your time. haddii aad ku liidato ka soo qaad معناها teamwork oo kale, try to learn how to معناها work as a team, and maxaa muhiim ah saa u noqotid معناها team player. So waxyaalahaas oo dhan waxay kaa caawinayaan in aad by the time koorsooyinka aad dhamaysid aad haysato maxay all necessary معناها skills and knowledge to get your first IT job. And maybe in a سؤال سويديسان, why IT? Why not like other معناها other fields, other sectors? anaga especially haddaan Soomaali aan nahay back home inta xasuusto wadanka dadka jooga iyo dadka ka soo taga wadanka dibadda yimid badankooda markay ciyaalkooda ay timaado macnaha waxay xooga ay ku saaraan inay dhahaan okay, become a doctor. The reason waa maxay? Because back in our mind macnaha waxaan aaminsanahay back home qofka hadduu yahay a doctor macnaha wuxuu lahaa privilege, yeah, wuxuu lahaa mansabad aad iyo aad u weyn, yeah, waxaa la dhahay oh hebel waa doctor. Yeah, it's good معناها field, good profession, helping other people, and إلى كقب قادتي قفك إلهي نوعات ما تسيو هذه مهمة تهين. But أدون كمان تأنجوجنا and medicine is important. But مركا أوبا هنت هاي profession or quick and faster medicine مكوبها بوين هاي. No, هدي أجعشها medicine that's good. Go ahead and do it. ما شاء الله. هذا أجعشها هاي other topics, yeah, that's fine. Go ahead and do. But IT marka itimado, we need to assess, yeah, and look at the world we live in at the moment. And it's changing a lot. In badan معناه waxa socda isbedel aan caadi ahayn. So isbedelkaas uga qayb qaadatid maxaa u baahan tahay? You need to have set of skills. xitaa haddaadan IT ku takhasusin oo professionkaada IT usan noqon, waxa u baahan tahay in aad leedahay good knowledge of IT. Yeah, but haddaa u baahan tahay IT inaad si gooni u baratid oo ku takhasusto, then that's another level. Yeah, because all other jobs now oo dadku ay sameeyaan hadday noqoto medicine, hadday noqoto accounting, hadday noqoto other macnaha sectors, all of them macnaha qofku waxa looga baahan yahay in uu haysto good knowledge macnaha maxaa lahdaa in IT. Without that it's difficult macnaha qofka to succeed macnaha and do the job in a macnaha good way. And so maxaa keenaya qofka inuu IT macnaha xoog u saaro? Few things aan halkan kusoo koobayo waa badan yihiin. There are so many of them. ilaa mar waxaan saabanayay 15 ayaa meel ku dhigay, laakiin waxaan sameeyey I compressed macnaha for you. So maxaa ka mid ah? Number 1 waxaa ka mid ah you can earn more and you can work maxay less. Yaan jeclayn macnaha inuu lacag badan qaato, yaan jeclayn inuu saacado badan u shaqeeyo. Of course anagoo dhan waa jecelnahay inaan saacado yar aan shaqeyno, lacag badanna aan qaadano. And haddaad u baahan tahay inaad saa samaysid, then IT is for you. Yeah, and IT is for you. And ma aha kaliya waxaan iska dhahayo, ba markaa shaqooyinka qaarkood aad fiirisid online macnaa waxaa arkaysaa in maalintii la qaadanayo 500, 600, 700. One of the guys haddaa ii yimid wuxuu dhahay I know a lady macnaha Somali lady oo ka shaqaysa in tech oo qaadata maalintii 500, and that's waxa igu qasbu dhahay inaan imaado iskuulka oo aan isku dayo inaan barto cloud iyo macnaha fieldiga noocaas oo kale, that's waxay ka shaqaynayso. And waxaan ku dhahay 500 waa qaadan kartaa, but you know inaad qaadan kartid more than 500 oo geni. And I know some of my students macnaha they earn more than that. Yeah, waxaa laga hadlayaa 700, 800, 900, 1000 maybe a day. I'm not talking about a week, I'm not talking about a month, I'm talking about a day. Then yes, you can earn that amount of money. Yeah, laakiin maxaa u baahan tahay? You need to have the right skills. Yeah, waxaa isku xiran skillska adiga aad leedahay iyo shaqada lacagta aad helayso way isku xiran yihiin. Yeah, so lacag fiican waa qaadan kartaa, and here waxaa gaaraysaa IT. You can dictate معناها your demand. You can say
if you offer me that amount of money, yes, I will come and work for you. Otherwise, I'm not interested. Of course, معناها your asking salary should be within the limit of IT sector. هذا okay, give me $500,000 oo kale, otherwise I'm not going to work for you. It's not going to work, ma shaqaynayso. So waxa u baahan tahay inaad macnaha waxa aad weydiisanayso uu yahay within the macnaha maxaa lahdaa in that area range oo dadka la siinayo. So heer waxaa gaaraysaa aad dhahaysid yes waxaan u baahanahay that amount of money. Haddaa inta asiisaan waa idin shaqaynaya, otherwise macnaha bye bye. The reason waa maxay? Because waa two-way system. Ma aha kaliya one-way system. Yeah? Markay timaado halkan waa two-way system. You need them and they need you. Yeah? So you here macnaha adiga iyaga u baahan tahay. And iyaga they're here, the company of course, yeah? And they need you. Ma aha kaliya one way. Dadka badankooda maxay sameeyaan? Iyaga hoos isku dhigaya. And waxay u haystaan iyaga inay desperate ay yihiin. In iyaga ay wax raadinayaan. In iyaga bes ay u baahan yihiin in shaqo ay helaan. Laakiin that's not the case. Adigana shaqo u baahan tahay. Kambanigana wuxuu u baahan yahay dad u shaqeeya oo maxaa lahdaa oo leh maxay xirfadda iyo skillska macnaha ku habboon. And that's why they willing to give that amount of money. Yeah? It's not easy. You know, company would go, okay, I'll give you 500 or 700 or 800 a day. It's not easy. Like the reason why maxay because they know the market. Yeah? And that's how waxay keenaysaa maxay in ay lacagta ay kor u qaadaan in order to attract, yeah, and get maxay more skilled macnaha people. Number two, and the market is growing. aad iyo aad kor u socdaa. And adduunku wuxuu ku dhisan yahay macnaha of course waa demand and supply. Yeah? So demand and supply always waxaa ka dhexeeya maxay wada shaqayn in business. Hadday timaado in any product markaa fiirsaan there's a demand and the supply. If the supply is too much, then demand will go down. If the demand is too high, the supply will go down. And that is the time aad u baahan tahay maxay in aad suuqa ku soo biirto. So IT hadda the demand is high. Yeah, it's going up and up and up. Yeah? And the supply is not level kilo bahna. So معناها waa maxay? Companies they're looking people معناها to join the tech sector. And shaqooyinka hadda ay lagu bixin jiray like 20k, 21k, hadda a lot of companies معناها waxay ku bixinayaan like 30k. The reason waa maxay? Because they need to attract maxay the staff. Yeah? And they offer other incentives as well. Yeah? Maybe they offer معناها bonuses oo kale مثال. Maybe overtime حالadaha qaarkood. Maybe health and insurance wax la mid ah. Waxyaalo badan noocaas oo kale bixinayaan. The reason waa maxay? Because they want to get and retain people. Yeah? Inay dadka helaan oo inay haystaan oo aan laga tegin. Because companigan shaqadiisa ma soconayso oo ma shaqaynayso haddii aysan haysan right people. Yeah? Shaqada waxay ku socotaa, companigu wuxuu ku shaqeeyaa waxay tahay in uu haysto right people, right staff oo u shaqaynaya oo ah creative oo macnaha wixii loo baahda qaban kara oo samayn kara. So haddii taa meesha ay ka baxda maxaa dhacaya? Company will go down, hoos u aadaya. So that's why hadda demandiga uu high u yahay. Demandiga waxa kor u sii qaaday oo ka sii dhigay macnaha macnaha maxaa lahdaa booming COVID-19. And sala socotaan COVID-19 waxaan galin lockdown for long time. Ilaa hadda laga cabsi qaba maxay inuu soo noqdo. Waxaan ka hadlayaa UK iyo adduunka intiisa kale meelo badan oo ka mid ah. So taa maxay keentay in a lot of companies invested in IT system a lot. They invested a lot of money into the IT system. Yeah? The reason because waxay ogaadeen in businesskooda uu yahay macnaha depends on IT. Yeah? And without a good IT infrastructure, the company will collapse, of course. Yeah? So taasaa waxay keentay inay IT-gooda ay balaariyaan. And shirkada badan hadda waxay ku bixinayaan to upgrade, to expand, yeah, the IT معناها system. And now is the time أديه لهيد yes معناها need to be part of the معناها محل هذا sector. Another big advantage or runtii aad iyo aad u weyn is the work معناها remotely. Yaan jeclayn qofka inuu gurigiisa joogo معناها bijaamihiisa uu wato shaahiisa uu cabayo haddana uu shaqeynayo lacagna uu qaadanayo. Of course dhammaantood waa jecelnahay. And that's waxa IT uu ku ogolaanayo. And ma lahan xisaab the number of people oo ka baxay iskuulka oo ka shaqeynaya xaafadooda, yeah, oo same lacagta ay qaadanayeen macnaha markay xafiiska ay tagayaan ay ku qaadanayaan gurigooda ayagoo jooga. Yeah? Marka taasna waa another big macnaha advantage. Runtii aad iyo aad u weyn. In that way you save macnaha time and also you save maxay money because maalin walba inaad sii socoto, minimum you're talking about 2 hours. Yeah? And of course waxaa ka hadlaysaa other expenses
oo aad bixin lahayd breakfast lunch waxyaalaha kale qaarkood aad bixinaysid. marka taa waxay keentay in dadka gurigooda ay ka shaqeeyaan. marka hadda afghanistan reportka la sameynayo oo laga hadlayo 1 in 4 or 1 in 5 labada midkood I'm not sure ayaa waxa lagu leeyahay they switching to IT. macnaha shaqooyinka ay haysteen ayay ka soo wareegayaan waxay u soo wareegayaan maxay into IT. hadda time macnaha badan ma hayo aan laga hadlo laakiin there are ins and outs. macnaheedu waa maxay there are new jobs oo samaysmaya and there are existing jobs oo suuqa ka baxaya. and I will do another session inshallah maybe sometime next week aan uga hadlayo macnaha shaqooyinka hadda cusub iyo shaqooyinka suuqa ka baxaya maxay yihiin. And I will talk about that another session inshallah because of lack of time. So that's another big advantage inuu qofka xaafadiisu ka soo shaqo tago. and halkan waxaan kaga qaadnay interview a lot of global net students oo idin sheegay in xaafadooda ka shaqeeyaan gurigooda ay ka shaqeeyaan oo aysan dibadda u bixinba. dadka qaarkood xitaa waxay ka soo shaqeeyaan from outside dibadda ay ka soo shaqo tagaan. dadka qaarkood hadda waxay ku leeyihiin okay we're looking for IT job but we need an IT job that would allow us to work from home from abroad. in u sheegna aan dhahno okay I want to move to Dubai, I want to move to Nairobi, I want to move to maybe Istanbul and I want to work from there. miya ogashahay taa? so haddii ha ay ku dhahaan waxaa leedahay yes, haddii may ku dhahaan waxaa leedahay okay bye bye I will get another company that allows me what I want. so dad noocaas oo kale hadda jooga because they have skills and experience and they have terms and conditions. ma aha kaliya in adiga lagugu xujeynayo adiga ataa iyaga ku xujeyn kartaa terms and conditions laakiin waa goorma waa marka aad heshid right skills not at the beginning marka cusub tahay. maxaa kale oo macnaha keenaya in dadku ay ka mid noqdaan the tech sector waxaa ka mid ah diversity of macnaha jobs. shaqooyinka aad iyo aad ay u badan yihiin. waxaa samayn kartaa inaad shaqo ku heshid maxay in networking, in cloud, in security, in macnaha programming, AI, artificial intelligence, machine learning, databases, and macnaha intaasoo shaqo oo kala duwanaa jirta oo aad u badan oo midba midka kale uu ka fiican yahay. and demandigoodana aad u badan yahay. ma aha kaliya IT one umbrella macnaha in hal meel laga wada shaqeynaya ma aha. dadka qaarkood oo dibadda jooga waxay u haystaan in IT uu yahay something basic oo macnaha isku level dadku ay yihiin isku meel ay joogaan taasay u haystaan. laakiin IT saa ma aha. IT waxa uu leeyahay macnaha fields ama subjectiyo aad iyo aad u badan oo runtii maxaa dhahdaa markaa soo gashid xataa adiga aad leedahay wow saa uma haysan. marka IT aad soo gasho hadhow later on you have to specialize into one of the areas. aad dhahdid aniga waxaan u baahanahay inaan areada aado sababtoo you cannot cover all IT oo dhan ma dabooli kartid. it's hard and difficult and it's not practical. but always waxaa samayn kartaa maxay meeshay dabeesha u socoto inaa aadid. and that's dadka IT fahamsan waxa ay sameeyaan. and that's what we encourage macnaha our students inay sameeyaan. always macnaha waxaa la aadaa dabeesha meesha u socoto. macnaheedu waa maxay shaqooyinka demandiga ah shaqooyinka hayga ah shaqooyinka hadda mustaqbal fiican leh inuu qofka xoog u saaro oo aad dhahdid okay now and next 5-10 years oo kale maxaa fiican oo suuqa socda maxaan macnaha aan xirfad ka dhigan karayaa oo i anfacaya maxaan hagbada fiican ka samaysan karaa ama guryo fiican ka dhisan karaa. yes you can do that. so definitely you need to sit down and macnaha decide not markaa cusub tahay bilowga laakiin waxaan ka hadlaa hadhow markaa noqotid qof ah kind of macnaha unique macnaha skills markaa samaysato taas waxaa samayn kartid. and also markaa fiirsan halkan IT-ga waa fast macnaha progression. macnaheedu waa maxay si quick ah ayaa waxaa samayn kartaa maxay isbedel. waxaa ka bilaabaysaa from the base first line second line and within short time waxaa samayn kartaa maxay inaa u gudubtid shaqooyin kale oo more advance ah oo aad kasii gudubtid macnaha meesha aad taagan tahay. way adag tahay other sectors inaad saas oo kale aad samaysid. I know some of our students at GlobalNet they started as a first line second line and within short time when I say short time I'm talking about like 6 months they moved from first line to second line. within short time less than a year 9 months معناها they moved to maybe cloud or maybe to and networking or maybe to other معناها third line oo kale tusaalahaan within short time. hadday qof iimadan weydiiyey macnaha waxaan weydiiyey shaqada hadda ka shaqeyso waa shaqo professional how long macnaha ayaa shaqada ka shaqeynaysa wuxuu dhahaa 5 years.
أن maxaa samaysta progression macnaha markaa shaqada aad joogtay wuxuu dhahaa very little, yeah, very little in terms of money and in terms of position. But IT is not like that. Yeah, 5 years. Yeah, haddii aad dadaashid, you can earn hey 6 figure. haddii suuqa sida hadda uu yahay uu sii ahaado 6 figures macnaha I mean 100k or maybe more haddii aad dadaashid 5 years waa samayn kartaa. And I know people oo ka baxay iskuulka our students oo lacagta in ka badan qaata, yeah, within time frame kada aan ka hadlayna 5 years. But shaqooyinka kale saa ujeedaan waxaa joogaysaa maxay more or less macnaha waa same position. Yeah, way adag tahay qof macnaha samayn kara quick macnaha progression oo noocaas oo kale ah. So that's why lagu leeyahay IT hadda inuu yahay the best macnaha field. And also waxaa helaysaa maxay inclusive macnaha culture oo macnaheedu ay tahay shirkado macnaha tixgelinaya diversity. Yeah, haddaad gabar tahay xijaaban xijaabkaada ku shaqaynaysaa, haddaad tahay qof wadaada maasha allah sunnihii ay ka muuqdo sunnadahaada haysanaysaa, qofna ma ku dhahayo saa maxaa u samaysay. haddaa u baahan tahay inaad tukato meel ku tukataa helaysaa. Yeah, haddaa u baahan tahay inaad ciidaha fasax qaadatid of course waa qaadan kartaa. Yeah, daas waxa laga wada maxay in inclusive uu yahay. sidoo kale waxaa lagu siinayaa other incentives, waxaa laga bixinayaa sometimes macnaha gym membership, waxaa laga bixinayaa tusaale ahaan kasoo qaad breakfast oo kale, waxaa laga yaabaa inuu yaal macnaha free snacks macnaha and coffees. Yeah, sida one of the guys maanta gurubyada mid kamid ah soo dhiga oo kale tusaale ahaan. So waxyaalahaas oo dhan waxay ka mid tahay the corporate culture. Yeah, and haddaad dhegaysataan videoska aan duubnay one of the gabdhaha kamid ah Xamdi, haddaa ku noqotaan one of the videos maasha allah aad iyo aad u fiican. macnaha shaqadeedii koowaad oo ay ka shaqaynaysay waxa ay ku dhibanayd inay tukato. Yeah, aad dhib ugu ahayd inay tukato. laakiin markay shaqada IT ay heshay of course macnaha dhibka waa u dhamaaday. aan waxay ku shaqaynaysaa maxay waa xirfadeedii skillskeeda ay macnaha ay baratay. Yeah, so that's waxaan ka wado macnaha inay tahay inclusive macnaha culture. Yeah, shaqooyinka caadiga ah warehouse is not macnaha practical to do that. It's not possible to do that. Yeah, it's not macnaha possible to get time to go to Jum'ah, pray, yeah, and do other stuff. But in IT, of course, you can do that. Yeah. So all of these combined together, that what makes IT appealing for a lot of people. Yeah. And I hope that is enough for you, yeah, to consider معناها to join the tech sector. Yeah. Still you have time, still you have and do your own research, but I've been in IT more than 20 years. Yeah. And I know how the IT market is shaping at the moment and where the market is going to. Yeah. And definitely I encourage our community, our Somali people to play a big role in this معناها fast growing sector. Yeah. And we need to conquer the London inshallah ta'ala in the tech sector. And we already started. Yeah. And we're doing well alhamdulillah. But we have to double or triple our efforts inshallah ta'ala. So that's our first section. The second section is identify additional skills معناها gap. Yeah. And that's based on the individual. Yeah, there's no one rule for all. Yeah, it depends on you. Yeah, you might already have a lot of معناها soft skills, communication skills, teamwork, and then all what you need is to learn the skills and then move and get a job. That's code. They are not like that. Yeah, they need to improve on معناها different areas of the معناها skills. Yeah, and knowledge. So sit down and we're here to help, yeah. And then kadib waxaa samaysaa okay na dhahdid waxaan u baahanahay this and that, yeah. And improve maxay meelaha u baahantaho dhan. And that's waxa laga wada maxay identify additional skills macnaha gap. What sort of skills are in demand markay IT ay timaado? And there are a lot skills oo ay ka mid tahay problem macnaha solving, because IT haddaa filisaan IT oo dhan waa maxay waa problem solving. cilada jirta lagu leeyahay ciladaas ayaa loo baahan yahay to fix it and sort it, yeah, out. So qofaa wuxuu ku leeyahay kasoo qad I'm doing video conferencing, qofaa wuxuu ku leeyahay my camera is not working, yeah, my lighting is not good, projector is off, yeah. So adaa lagu soo wacayaa maxaad u baahan tahay inaad meesha tagtid and have look and macnaha try to solve macnaha the issue. Someone is having issue with the laptop oo kale adaa lagu soo wacayaa. If there's issue with applications oo kale adaa lagu soo wacayaa. If there's a problem with macnaha networking or firewall or security or cloud adiga noqonaya. It depends the role meesha joogtay ku xiran tahay. Ba haddaan soo duubno IT oo dhan waa maxay? IT oo dhan waa problem solving.
cilada jirta xal ayaa loo baahan yahay. That's all. Yeah? And taas maxay keenaysaa haddii aad ku fiican tahay problem macnaha solving, you will enjoy IT. Yeah? Because IT oo dhan waxa loo sameeyo waxay tahay to enable macnaha businesses and to solve maxay our issues and problems. Yeah? So that's one of them. Number two, waxaa loo baahanaya qofka inuu yahay qof creative ah. Yeah? Especially when you are doing like macnaha programming oo kale, macnaha design oo kale, and wax la mid ah. Waxaa u baahan tahay inaad noqoto more creative. Yeah? badanaa taasoo kale qasab ma aha markuu qofka ka shaqeynayo shaqooyinkan like first line, second line iyo wax la mid ah. Communication, that's very important. Yeah? Every single job oo la xayeysiiyo waxaa arkaysaa qofka in leeyahay we need macnaha good communication skills maxay both written and verbal. Yeah? The reason waa maxay most of the time you will deal with the people. It's like customer service oo kale. Anyone with good macnaha customer service skills, yeah, they can get a job within short time. The reason why you can transfer that skills into IT. All what you need is to learn A+ and Network+ and bit of server. At the intermediate within short time, 3 months, 4 months, you can get an IT job. So the communication is key. Yeah? And many organizations, they look at your communication skills, not your technical skills. Yeah? Even if you like technical skills, even if you don't have that much of knowledge in IT, but you are a good communicator, yes, we can train you. And to learn the technical skills is not that hard. Yeah? It's something you can do within short time. Yeah? So communication skills is very important. So if you want to get an IT, a job here or other places, I encourage you to learn and improve your communication skills. And if you are in London, if you are UK, of course you can do that because you are in UK. Organize yourself, allocate time, yeah, and start learning. Don't delay. Yeah, dad arkaysa wadanka jooga for 10-15 years oo ku dhahay I want to start a new English course. Yeah, that's fine, you can do it, but ina samaysa ahayd long time ago. Yeah, wali waqti haysata hadda, especially dadka hadda cusub ay yimid. Yeah, and wuxuu kuu furayaa meelo badan haddaa u baahan tahay inaad hor usii socoto, haddaa u baahan tahay to feed the team, haddaa u baahan tahay to learn new skills, haddaa u baahan tahay waxaasoo dhan waxaa furu ah maxay communication and communication. maxaa kale u baahan tahay waxaa u baahan tahay inaad samaysid maxay you need to preserve. Yeah? Persistence is very important. Yeah? And that's waxyaalaha dadka qaarkood macnaha ka maqan. They start IT course within short time, they quit. They start accounting, they quit. They start university, they stop. Yeah, they go to and other sectors within short time. They give up. And that type of runti dabe'at waliga malkum tagaysid. And you apply every aspect of your life. maxaa u baahan tahay if you start something you have to stick to it. Yeah, you have to stay, yeah, and try to finish it. Yeah, habit ka dhigo wixii aad bilowday inaad dhamaysid xitaa aysan bannaan ilaahuma samaysid in yar. I remember one of my students hadda meel fiican ka shaqeynaya wuxuu dhahay I wasn't good learner, yeah, but I stayed. Yeah, I did not quit. And wuxuu dhahay maanta meesha aan joogo waxa i gaarsiiyey waxay tahay because I determined to finish what I have started. And now, mashallah, he earns good money. So waxaan ka wadaa waxay tahay always nolosho dhan markay timaada haddaa fiirisid qofka waxa uu bilaabo waa inuu joogteeya. Haddaa saa samayn weligaa ma tegaysid. Life is full of surprises and ups and downs. If you quit easily, maxaa dhacaya? Then wax walba aad bilowdo saasay noqonayaan because wax ma jiro waddo fudud ma jirto nolosha. wadda ma jirto ubax lagu goglay ama lagu fidiyey. Yeah? wax walba waxay u baahan yihiin adayg iyo dulqaad u baahan yihiin. Yeah? So that's why skills runtii aad iyo aad muhiim u ah. If you have it, that's good, mashallah. Otherwise, develop. Yeah? Learn how to preserve, learn how to stay and focused. You can do that. And maanta adduunku wuxuu noqday like a global village. Yeah? adigoo gurigaada jooga, you can learn whatever you want. Yeah, almost. I'm the only one in this studio, and we have more than 130 people on the session, and all of them have a dekasogalen. Look,
This wasn't معناها practical before the pandemic معناها 2020. We cannot say معناها pandemic waa mahadsan tahay because dad badan oo aan jecelnahay oo human ayuu naga qaaday. laakiin dhinaca kale wuxuu sameeyay maxay huge معناها change aad iyo aad u weyn isbedel aan caadi ahayn isbedel isaga la'aantii ay qaadan lahayd time aad u badan waxaa qasbay oo keenay maxay waa pandemic one day ayaa waxaa la dhahay guys stay at home you cannot go to anywhere and maxay qasab ay noqotay shirkadaha they have to adapt they have to learn a new way to do the business us we have to adapt as well we have to come with a new way to teach this معناها online teaching I had in mind for a long time and even we started in 2010 معناها I used to teach from here to South Hall using application loo yaqaan معناها Webex that time but dadku diyaar uma ahayn and because of that reason we stopped it but now dadku waxay ku leeyihiin oh can I join the class from home or can I join from abroad from outside or can I attend معناها the class without coming to the class people are ready and maxaa keenay because pandemic has shifted معناها their mind and that's why waxaa kale u baahan tahay inaad marka IT dhiganaysaan noqotid معناها curiosity aad muhiim u tahay macnaheedu waa maxay you need to learn معناها an ma fahamtay inaad ku dadaashid inaad fahamtay waxaan qaabka u shaqeynayaan okay there's a computer here but this computer how it works what is a CPU how CPU works what is RAM and how many different types of RAM are there and there's application kasoo qaad Office 365 okay muxuu yahay how it works معناها how to install how to use it okay there's a معناها network oo kale what is network muxuu yahay so that curiosity will take you somewhere far and that's what shirkadaha ay jecel yihiin if they see you someone who is معناها very معناها maxaa hada person oo raba inuu wax badan barto and sameeyo research badan oo wax badan ogaado they need to keep you because waxa qayb ka tahay the success adiga ha fiirin lacagta kaliya aad qaadanaysid ba waxaa fiirisaa the value you add in to the company because you add in a lot of value to the company and they making معناها that money and they succeeding because of you shaqada u haysid and dadka qaarkood waxa ka maqan mindsetkooda moogta they look macnaha ayaga intay qaataan wow oh I'm getting 3,000 4,000 a week or maybe a month whatever and waxay iloobayaan iyaga qiimaha ay lahaayeen and company-ga lagu sheegay dhan waa maxay waa intaas oo qofood x number of people isu tagay oo qof walba meel uu qaabishan yahay so role walba oo kamida waa muhiim and kan ugu sii muhiimsan is the IT and you are part of that team. So do not underestimate yourself. Marka the company hadduu ku arko inaad tahay qof macnaha curiosity-siga fiican yahay then they will retain you of course. And waa inaad noqotaa qof maxay resourceful ah. Resourceful macnaheedu waa maxay you have to invest on yourself. If you want to get a book macnaha get the book. If you want to learn a course macnaha pay the course. If you want to attend seminar go and attend. Waa in waxaad u baahan tahay heli kartid sababtoo ah that is part of your development. You are where you are. Because you invested on yourself. Without that, حاجات تجي لهين. No, ما تجي لهين. مش هذا جوج لهين. So the more you invest on yourself, the more you succeed and the more you earn. وسكوح رأيين. So that's what another معناه رنتي skills مهمة. وقف كنو برتو. مسكح هذه صنو كنا نعيه لو بهاي. Helping others. و teamwork. هذا مهم تهاي. شغلين كل يقول يا هاي are you team player. معناه how do you fit our team. Tell us معناها إتام قد قف عاوي سوكله. maxay u baahan yihiin they want to establish if you are team play or not haddaa tahay qof keligii ah oo gooni socod ah oo dadka aan la shaqayn karin is difficult macnaha to fit macnaha into that team and they don't want someone noocaas oo kale ah waxay u baahan yihiin qof helpful ah oo caawinaya the other colleague ula shaqaynayo and also caawinaya the customers oo ah team play ah so that's another skills oo muhiim ah so marka IT aad dhiganayso kale you have to invest macnaha time to look into macnaha how to معناها become a good معناها team player and of course you have time to do that. Okay, let's come to why GlobalNet. Because marka IT اعتماده of course معناها in IT برتا أبهان تهاي لكن هذانا مركا IT أبراني سو كلا حاجة كده جنايسا that's what another big question أو غف كنو سودية لو بهاي and in this section I will summarize I don't want to go in details I will summarize and quick and fast and then I'll move on to the next معناها section. So first معناها welcome. So I'm here to welcome all of you. Why GlobalNet? And GlobalNet runtii waxaan u sameynaa waxay tahay to empower the Somalis. Sababtoo ah we have our own unique requirements and that's why aan u sameeyay معناها GlobalNet at the beginning. And
is based on our معناها own ما فهمتي Somali way هذا سكلا وشيء هذا مقايدها كلا تكتب سؤالهان وأنت ذا أي كويرات وما دي كتجوك إيسوسي لكن مقايد سؤال هذا تكتب وأنت ذا حوجا كوجو في النووي ذا حلا هذا صاحب جوك إيسوسي أصل فهمينا سماها مركا وحن كوذا واحد هاي باهيدا هذا جرت مركان في السوق وحن أجانا إن Somali ذا باهيدا ذا يونيك أي تهاي so تاس وحن أسميني IT معناها معك global net. Number 2 وحن أسمينه حتى هاي to fill محي the digital gap. وحاسو على هذا information age. وحاسو على fourth revolution. كعنك أفراد أياسو على هذا دونك كاسو على. أنا أسكفر لنا ونسكسي حنا معنا سمين ميسو. وحن أبها النهي to wake up. And to be part of the revolution. And of course we can do that. هذه وضنا كانوا باباي عن صوجبني أو عن سوقحني of course معناها دباتويتها but we have to learn from that mistake and go back and rebuild our country inshallah ta'ala. Yes, if you're born here that's fine حق الولاية هي of course وضنا كانت جوكتيد لكن at the end of the day we came from معناها back home and one day of course we will go back inshallah ta'ala and we love England and we love معناها UK and we love of course back home. And so digital gap here and back home. And that time I graduated from university, was working NHS, معناها good job, good pay, good position. And I used to teach, no IT, but I used to teach other subjects. And people came to me and said, okay, we can see you, معناها you have a good job, a good position. Can we learn from you? Can you teach us معناها IT? And I started معناها once a week, Saturday, once a week. Even before I established معناها GlobalNet, before 1998. I'm not talking about 2001. Most of the time I say GlobalNet in 2001. That's true. But before that, I used to teach here and there. Basic IT skills. I didn't go to office applications. I didn't go to basic computer hardware. But it's 2001 when I started GlobalNet and I started teaching IT as a profession, and that was a long time ago. And I believe some people on this session even not born that time, So the IT that time was and it was, mashallah, amazing. And the Hawaii, marka IT بلابي قف إذا هاي IT سماه رنتي مجرين. My plan, I came from back home, Somalia, at a very young age, and my dream was to become a doctor. In a نقضه معناها doctor. That was my dream, as the dream of most of the Somali people. But markii intaan imid oo Soomaaliya uu ka socday civil war laga sugayo معناها biil هذا كتير laga sugayo تصالحان عاونات بدن support بدن ما ليه كتير معناها medicine because medicine هو بهاي هاي dedication هو بهاي هاي long time هو بهاي هاي commitment هو بهاي هاي financial support هو بهاي هاي emotional support وحيل بدن نوع سوقرا. And I didn't have that time at the time. Then that's how I came to okay to change معناها to another subject. But والله حقيقة قف يقول هاي IT سماء ملهن إلهام من الله إلهي وحوق قلبي ما يبينا نعاون دونه thousands of Somali people and إلهام من الله الإله يقوهن شيء أيوة نحن سميه IT and now I don't regret والله وحنلاقي هاي it was best معناها decision I ever made in my life مركيتي ما معناها حاجة وحبر الشذا in IT سميه وحوها one of the best معناها decisions in my life and the reason how because لنا علم ذاك في السد ورنتي success هدينا قلت أني تيل إيجار كأ was good ما شاء الله هدينا قلت helping the community إيانا واسيدو كله because أنت قفوض أن عاوي أو أن عاوني as a global net إذا سكبدينهن there are a lot of people in the tech sector if I say 3 out of معناها 5 that IT كشقية are from GlobalNet. I'm not exaggerating. 20 years of teaching and very successful معناها track في الله الحمد. وآدي معناها ضدنا كسابحين. And it's well known. الحمد لله ضد كده حدود Somali community. We'll go to another level inshallah to increase معناها and double and triple our efforts inshallah ta'ala. So we wanted to fill معناها the digital gap, between Somalis and other people or UK مركز جوجي. And also I had in mind معناها tech hubs معناها for Africa. In a Somali نقطة معناها back home
tech hub معناها for other Africa. هذا إنديا اللي قلت المهم إنه هي أدونك ماذا بدن especially Asia in a hub or type for IT. فأنا as Somalis we have the skills, we have the knowledge, yeah. And most of people Somali that they love IT. هذا وجعليهن. And وجعليهن of course معناها قفل بجعل لك ممكن العكس اعتمادا هذا وجعليهن. Easy job هذا اعتماد هذا وجعليهن. من هذا كنا جعل لك ونسيك لجعليها. وحكلاسي منها تاس Nigerians. لكن يجمع إحنا داريهن وينجا إن أذجيهن. أنا جا حوجا Somali إن أذجينا حماها وأنا قد إحنا نواي. هبل وفلان هبل وفلان وحيل معنا الحين. But the other people they talking about قف أركيسا ولقي IT أنك شقين شقوا أركيا 80,000 80k. أنا نقول ها 80k ولقي IT مريهم قالوا اسكو حرية job is bigger إنه كده بحياة شغلوا دلبانية أنا وهلية أنا never did IT كاسة وحلو يخلينا ذيك بنا أكلوا أركيسا Somali ذينا قف سمية كل شوين كاب to CCNB maybe أو ولك بخيا إنه شغل هذه. So dadka waxa lagu tilmaamay in adagnahay laakiin adeega dhinaca xagga professionka ah wali ma soo gudbin in adeega xagga safarka iyo qurbaha soo galideeda iyo in adeega dhexdeena iyo kaas oo kale uu badan yahay but this another level to go and hopefully inshallah dadku hada way fahmayaan waxa laga yaabaa dadka cusub young generation inay sameeyaan isbedel aad iyo aad u weyn so in mustaqbalka aan baaghom ka dhigno macnaha hub for Africa la dhaho qof Soomaali hadii la arko qofkaas waa IT experts waa IT professional waa IT engineer of course waa u baahannahay other sectors ba waxaan ka hadlayaa waxay tahay wadan walba wax buu caan ku yahay an ummad walba wax bay caan ku tahay UK hada markaad fiirsaan warshado waaweyn wax soo saar ma qabaan laakiin maxay caan ku yihiin waa services they provide maxay services to other people to other countries ana adduunka san ka haystaan waa ujeedaan macnaha marka aniga lafteena waa samayn karnaa inaan وحالها قد أن كنا قلنا unique and نحن معناها that is our areas and IT is the best option and when I say another level معناها that's إن شاء الله my plan إن بلارينو أو إلى أفريقيا أنا نقدبنا وأن كسمينه هبس أدوا إن شاء الله تعالى will you help guys because عنو بهنا هاي that IT أخونت هذي له أو يقانا أو شقة قريب كنا قناية look Rwanda it was 1994 they were in civil war. Almost 1 million people died. 800,000. And now one of the fastest growing country. And their GDP وحكى هذا ليس about 10% 11% كما دقوا. دقالك وانو قدم بيين قوشة وانا قهرة ينساو جدان. And محاوي because the leadership كوذا أي وحي أقادن IT إنو يهي one of the best options to save the country. And they created وحلو يقان محي Vision 2020. And Hilligay Samarian, that vision, it was 2000, not now. 2000 ka vision ka Samarian. And the only way, to move forward and to save the country and enable people, empower people, is to invest in IT. So in order to invest in IT, we have to teach our people. So هذا مركا ودن كودا تكتيد is amazing. سو يهاي إيو, سو أجي هاي إيو, رمركا كم وقنا إيو. It's amazing. أنا جم حنو ديري يسوي nothing. We have the talent, we have the knowledge, We have a large number of Somali community معناها abroad, especially in Europe, in key positions. وصلنا all what we need to do is معناها a bit of stability, and we have to create معناها that stability left there. قف كنا نكسبنا معها. I don't want to go into politics but at the end of the day we have to معناها come together, and save the country, and people. And GlobalNet here for 20 years. We have معناها teachers runtii awood u leh inay aqoontooda cilmigooda u gudbiyaan ardayda. We provide معناها free lecture and lab book for last 20 years. Every single course aan sameyno waxa uu leeyahay buugaag anaga aan sameynay aan diyaarinay oo nidaamsan oo qofka uu ku soconayo manhaj. markii waxbarasho ay timaado waa manhaj. markii aqoon ay timaado waa manhaj. marka lagu leeyahay jaamacada waa top universities iyo jaamacada waa low معناها maxaa keenaya because the way they teach the curriculum kooda system kooda ayaa kala duwan and taas waxay ku noqonayaan jaamacada qaarkoodna top universities qaarna ay ku noqonayaan maxay at the bottom and we invest a lot of time and energy and we invest معناها the books in time lagu bixiyo la diyaariyo dadkii loo soo gudbiyo wax kooban oo nidaamsan
oo sahal u noqonaya maxay in ay nolosha ka boodaan oo si fudud shaqo ay ku helaan. And taas waxay keentay dadka ayagoo jaamacad ka soo baxay oo degree haysta, they come here. Yeah, they have computer science, networking. They come here to do the courses. Why? Because they know the value of our courses. Yeah, and they have seen a lot of people oo sameeyay koorsooyinkan oo guulaystay oo ka shaqeeya IT. Antaa waxay ku timid falilahi alxamdu wa the effort and energy aan gelinay maxay into our system, helping to build macnaha CVs. That's one of the macnaha waxa tan badan iga qaata badanaa. Yeah, and qof walba CV unique in loo sameeyo. Yeah, oo la caawiyo in qof walba aad u samaysid markuu heerkaa soo gaaro CV isaga unique u ah aad dhahdid yes this is what you need. Yeah, and other macnaha ma fahamtay interview tips waxaas oo dhan time u baahan yihiin, waqti u baahan yihiin. Yeah, and we do all of that for free. We don't charge. ardayda marqaati ka yihiin. Yeah, 1 penny qof laga qaada ma jiro marka CV timaado, marka reference timaado, marka timaado interview, marka timaado seminars. No, all of that for last 20 years waxaan ku sameynaa maxay for free of charge. Even حتى we don't say them come here and help us. And that type of service ما laga hela ma jirto حقيقة apart from GlobalNet. waxaan sameynaa waa hands on experience. dadka qaarkood jaamacada aadeen, jaamacada ka soo baxeen, that's okay. But waxa ka maqan they like maxay the practical aspect of IT, and that's what we do here. Free retake. haddii aad ku noqoto kooraska ama uu kugu adkaado waa ku ceshan kartaa mar labaad adoo lacag cusub aana bixinayn. Affordable fees. For last 20 years we haven't changed our fees. Yeah, for last 20 years. Yeah, same fee ayaan dadka aan ka qaadnaa. So that tells something. And flexible schedule. And schedule keena waa flexible. Morning, evening, yeah, weekend, anytime aad u baahan tahay ayaan koorsooyinkaan sameynaa. And here our students work for big organizations. You know, jaamacada waxa lagu qiimeeyaa dadkii ka soo baxay xaggee tagaan oo ay ka shaqeeyaan. dadkii wax ka bartay xaggee tagaan oo ay ka shaqeeyaan. marka laga hadlayo tusaale ahaan dadka kiiga ah in the government oo civil servant oo kale ama dadka la midka dhammaantood waxaa lagu qiimeeyaa meesha ka yimaadeen ama jaamacada ay ka soo baxeen. So that's why jaamacadaha qaarkood ay yihiin top universities. Yeah, so anaga alhamdulillah our students macnaha waxay ka shaqeeyaan maxay the top institutions here and outside of UK. In UK markay noqoto waxay ka shaqeeyaan the key positions meelaha ugu waaweyn oo laga shaqeeyo in waddankan UK. hadday noqoto financial sector, hadday noqoto government agencies, hadday noqoto private sector, hadday noqoto macnaha any sector fiiri macnaha waxaa ka shaqeynaya arday badan oo ka baxday iskuulka. And some of them I summarized and listed maxay here saa ujeedaan. Yeah, so inaan taan badan ku bixiyo ma baahni laakiin go to YouTube and have a look macnaha the videos. Yeah, and waxaan u sameynaa videos waxay tahay to encourage and inspire other people. Yeah, because waxaan u baahanahay haddii adiga aa guulaysatay in guusha adiga bes aysan kugu ekaan sababto adiga badadaa sabab ku ahaa ku keena halkan. Yeah, oo ay ku dayanaysay. And do the same for other people. Yeah, oo samayn karna inaan dhahno okay lacag fiican aan qaadanaa 9 to 5 isaga ekaaw laakiin why aan time kan loo geliyay to change the entire community. Not only one person who samayn kara that change anagoo dhan aan samayn karna as a community. And that's what we need to do. How we deliver our courses. Yeah, so koorsooyinkeena sidee ayaa loo bixiyaa. dadka iskuulka dhigta badankooda way fahamsan yihiin way yaqaanaan qaabkan u bixino macnaha koorsooyinkeena. Yeah, so we have 3 unique systems. 2 of them are already there, implemented, but one of them it will be coming sometime soon, inshallah. So the first one is GlobalNet in class. People come here, yeah, to learn IT physically, and that's what loo yaqaan in class or in person. And that's waxaan samayn jirnay for last 20 years. dadkuna yimaadaan iskuulka halkan yimaadaan macalinka la kulmaan kursadii ay qaataan physically halkan ay joogaan. And dadka qaarkood they prefer that way. They want to be here physical, yeah, and attend the class and sessions. Yeah, and we have that system in place. The second option is GlobalNet Live. And GlobalNet Live is something we have started last year, 2020, the pandemic. So I mean, maalin kaliya la dhahay stay home.
ما bixi kartaan. Taasaa waxay keentay to change معناها the way we deliver and معناها give lessons. Yeah? And waxaan sameynay waxa loo yaqaan maxay Global Net Live, which is a system that allows people to join from anywhere, yeah? Anytime, yeah? On any device. adduunka meel kasta ka joogtid. All what you need is internet connection, and that's it. If you can access internet, you can access our courses. Yeah. So your physical presence is not that important. You could be here in UK, you could be in Europe, could be US, Africa, Asia. That doesn't matter. All what you need is connection to the internet. Yeah. And then you can join our courses. And since we started, a lot of people, yeah, a big number benefited from that system. And every class aan sameyno dadka in classka ah iyo dadka live u soo galaya waxaa badan dadka live u soo galaya around the globe meel kasta adduunka ay ka joogaan. And we haven't advertised معناها that much. We haven't ما فهمتي put a lot of efforts معناها inaan dadka gaarsiino. But alhamdulillah, yeah, waxa markay honesty ka yihiin, daacad ka yihiin, good service u yahay, people will tell word of mouth. ayaga isu sheegay. And that's waxa keenay in classyada xitaa online-ka lambarkii loo baahnaa la gaaro si fudud. And we'll continue that inshallah ta'ala. And we invested, alhamdulillah. معناها we're not using normal Zoom. You're connected to Zoom, of course, but we're not using Zoom. Yeah, we're not using webcam. We have few cameras here in the class. Yeah, and we have other better software system. Yeah, which is not cheap. And the reason, and usrayna waxaa waa maxay, to give people good experience. They come in here to learn, and we want them to learn the best possible way without increasing the fee. And that's what we're doing, alhamdulillah. The third option is online or self-based. In system uu soo baxo, qofka uu gadanayo kasoo qaad course, maybe 50 hours tusaale ahaan, oo qofka isagu iswadaayo with the quality. With the quality. معناها that's important. Good content. And that's waxa keenaya maxay to delay that system and do it slowly. Because we need something unique, something special, something that allows people to learn, yeah, and apply seafood. And that is coming sometime soon, inshallah ta'ala. It's in the progress. In class markay timaado, I'm not far from that building. Hadhow markaan ka baxo xafiiska waa lugeynaya and meelahan sii maray ka mid tahay markaan lugeynayo. It takes me less than 10 minutes. And our courses aan bixina haddaan usoo gudubno, koorsooyinka aan bixina way badan yihiin. There are a lot of courses we do here at GlobalNet. So this is the number of courses we offer. Roadmap to service desk. So of course you're here to learn and you're here to get a new profession, learn new profession, get a job in that sector, in the IT sector. And waxa u baahan tahay roadmap. Without roadmap, you cannot go to anywhere. Without a good plan, you're not gonna get anything at all. Marka life ictimaad waxa u baahan tahay map, waxa u baahan tahay naqshad ku hagaysa. Oo leedahay, I'm here, yeah, and I want to go there. What steps aan u baahanahay inaan qaado in order to reach my destination? Haddii kale waxaa noqonaya maxay waxaa galaysan about endless circle, and eventually maxaa dhacaya? You quit and stop, and you regret. Waxaa leedahay, oh, I wasted my time. So anaga waxaa waajib nagu ah markaa to provide the roadmaps, the services, the courses, and motivation, and all of that. And it's your job to take that and implement. haddii adiga ka caajistay, haddii aad samayn weyday, haddii waajibkii loo baahnaa aadan ka soo bixin, then we still encourage you, yeah, to come back again and do the same course as samaysay without any additional payment. And we're here to help. But don't expect someone to give you a job. And even حدها directed, yeah, guys. qofku dhahaya guarantee shaqa helaysa, that's a lie, pure lie. No one can guarantee a job معناه inaa heshid. And one thing, alhamdulillah, at GlobalNet, and ilahay uga mahadnaqay waxay tahay, with our honesty and integrity. We don't compromise on that. Yeah? Yes, shaqa waa heli kartaa. Yes, there are plenty of jobs. Yeah, there are many jobs that heli kartaa within short time.
فإن lagu ballan qaado macnaha lagu dhaho guarantee Mr. Maxamed xaawo shaqa lagu siinayaa adiga gacanta lagu qabanaya waa lagu geenayaa, that's a lie. ciyaalka adiga aad dhashaa maanta shaqa siin karin haddaysan diyaar u ahayn. Your closest friend aa shaqa ku siin karin hadda adiga diyaar u ahayn. It has to come from you. And haddii adiga ay kaa timaado, you don't need someone to guarantee to get you'll get a job. You'll get a job, of course, because adiga ay kugu xiran tahay. You committed, determined, yeah, and definitely you believe yourself, and you will get a job, and you have the right mindset, and waa samayn kartaa. And that's waxaan ku shubno ardadayna maskaxdooda, and that's waxa ay u guulaystaan oo meel fog u tagaan. So first macnaha roadmap waad u baahan tahay to get an IT job is this one. It's easy, ABC. hadda intaa samaysid oo dadaal aad ku dartid, of course you can get a job within a short time. The first one aad u baahan tahay is committee A+. What is the A+? I'm using laptop, I'm using tablets, yeah? I'm using other devices here in the school. All of them, they are computers. They have components like CPU, like RAM, like hard disk, like this and that. All of them are important. So if you want to join the tech sector, you have to learn how these devices work and how they do the job and what is the job of each of them and how to fix, how to معناها troubleshoot if they're faulty. marka shaqo hesho qofka ku soo wacay wuxuu ku dhahay, oh, I'm having issue with the laptop. Maybe the issue is with operating system. And if you don't know what operating system is and how to install, you cannot fix it. They might have an issue with the hardware, like hard disk or collect. If you don't know how to fix it, you cannot do the job. Yeah. So meesha ugu hooseysa oo laga bilaabayo waxay tahay waa committee A+. And go and listen to videos on YouTube. All of them, ardada ka hadlaysa maxay ku leeyihiin, you need A+. I did A+. I did Network+. I did Server. Then I managed to get a job. And maxay ku leeyihiin, most of the time shaqooyinka aan samayno first line and second line are based on A+. So that is the requirement, technical requirement. When I say معناها foundation, it doesn't mean foundation or basic. There's another one that comes before that, and that's what they call it ECDL. But I'm not here to talk about ECDL. If you want to learn Office applications, yes, you can do that course. But I'm not here to talk about that. Yeah. وwaxaan ka hadlaynaa how to get a job within next 6 months. dadka qaarkood sameeya, they are from university, they have a degree in computer science, in networking, and yet they have to come here and do that course. Why? Because that is essential for them. And way ogyihiin, way la kulmeen dhibaatada. And then kadib they decided to come here and start from that course. If you already have a knowledge in IT and in A+, that's okay. And that's what we do, معناها consultation, yeah? When you come to us, waxaan ku leenahay this is what you need. But that's customized on you, معناها knowledge, on you, معناها waa per person, ma aha one rule for everyone. Aday kugu xiran tahay. And even if you want to do معناها coding, yeah, which is programming, you need that. You need A+. Because in programming, you need to معناها program the computer. Yeah, how the computer معناها stores معناها data, how program accesses معناها RAM أو memory أو how computer software organizes معناها the system. If you don't know معناها the back end وحكى دعية أو system كقاب هو شغالي, then of course معناها will be difficult for you to learn. So even هذا أو بهذا coding أو software development أو still you need to have a good foundation in A+. The second one is the network. There are different roadmaps. Yeah, but mid كهذا أنا عن كهذا أو main كهذا و how to get your first IT job معناها in service desk. Yeah, and that's the quickest and fastest way to get your first IT job. Yeah, and there are plenty of jobs. And I will do inshallah other roadmaps or cloud, cybersecurity, معناها ميلها كلا inshallah ta'ala another time. So that's a second. And we use network every single day. We use a network right now. Yeah, on Zoom. Yeah, that's the way I'm delivering معناها this topic. maxaa sahal ka dhigay adoo gurigaada jooga shahaada cabaya qolkaada fadhiya inaad heshid macnaha this presentation. Waxaa sahal ka dhigay waa network. Haddii waxay qaldamaan ka soo qaada teacher at the university or college, they're not IT oriented people. macnaha they are academics. They know the topics, science, English, whatever. But when it comes to IT, waxay ku leeyihiin no, that's too much for us, too advanced for us. They will pick up the phone and contact my IT department. And other will say, oh, Mr. Mohammed, oh, can you go and have Mr. John Smith? His system is not working. So marka meesha tagto, you need to have a good knowledge in networking. Adikala you cannot find, yeah, the issue and problem.
So هنا فهمت هاي what is LAN, WAN, Wi-Fi, security, yeah, all of these protocols okay, HTTP, SMTP, practically how to install Linux okay, communication, SSH, Telnet, all the labs as I say in Network Plus are essential and very important. And it's one of the most important courses in IT, in cloud, in security, in networking, in server. waxa أهم هي inta hadaan ka hadlayo labadooda A pluska iyo network, the foundation. Then after that you can move on to the third one, which is the Microsoft معناها server. And قفل بهذا الشغله هذين يويدي معناها waxa lagu leeyahay what do you know about معناها AD? Do you know AD? What AD do you use? So what is AD then? Yeah, in FM Center, very important. That's what organizations use to manage their network resources, users and groups and permissions and policies and applications and all of that. They use AD to manage all the resources. And marka shati agashatid or sud agashatid الله هذا شغل هذين I have knowledge معناها of course waxa lagu weydiinaya okay waxa ku saabsan معناها سيبها. So that's another course on HEMA. How long it takes معناها each of them. And after that, there's a service desk, which is more like Exchange, yeah, Office 0365, yeah, deployment, and a lot of things like that. So that course is essential, but a lot of people manage to get a job while they are at this stage. So how long it takes each of them? That's 8 weeks, once a week. And it will run 8 weeks, 9 weeks, 10 weeks maybe. We say 8 weeks, but most of the time finishes maybe 9, 10, and that's okay. And that's why that would course, so you can customized for our Somali people. If you're busy, معناها weekdays, okay, كم معناها هذا weekend. هذا weekend مشغول in the future, there will be weekdays one, morning, evening. So we run the schedule at different time. The reason why to give you options, yeah. In other than schedule كينا معناها it doesn't fit my busy معناها busy timetable. So we can do that. Yeah, we can even حتى هذا مشغول تهي or rotation شغلة هذا تهي still we record معناها the videos and put online and then you can access anytime you want to go through what you missed. So once a week, 8 weeks. Can كلا واسيدو كلا 8 weeks once a week. And that one same. So what you can do basically, you can take one course, finish, then after that move to the second one and finish, and move to the third one and finish. You can do that. Or if you want, you can combine the courses. Yeah. So تصلحوا حسب إنك تنادى okay. لو هذا قادنا at the same time. A plus and Network Plus. And within say 10 weeks, okay, 8, 9, you can finish both of them. And then after that, you can move on to server. And that's how some people manage to get a job within 3 months, because they combine the courses rather than doing individually. So it depends on you. That depends on your time, on your ability of learning, your financial means. وحلا بدنا نوع عسى to consider. So I don't want to say to you everyone can sign up for 2 courses. But some people can do that. So when you come to the school, we'll sit with you and give you a plan, and then after that you can decide, yeah, if you want to do 1 or do 2. And at the end of the day, we have a policy that allows you to repeat the course, yeah, without paying you a penny. If you sign up for a course and you feel like you missed it or you want to do it again, of course you can do that without any additional payments. So that is the quickest way to get your first IT job. What about if you want to go to university? Of course you can do that. And you can go to university within short time, within a year. We are in September. So next year, September, you could be ready for university. And I'm not talking about first year, second year. Possible. مرة هي بقول وصمين كرتا. But وحا possible هنا قبل ذي محي from third year. And I have seen a lot of people or سوقاتي level 1, level 2, level 3, then foundation degree, then degree. You're talking about 10 years of the prime time. Time كذا مهم كها. في وقت وقوا بهم بني آدم كذا. يقول لهم حلقة يا بس 60 plus عن الوقت. So if you spend like that amount of time, yeah, for education, then of course معناها time بدنا كذا بحياة ماشي. It's good to learn,
but that's not efficient. There's no معناها fast and quick. So dadka college عادية level 1, level 2, 3, foundation degree, then academic degree, I say to them, that's waste of time. There are other ways to do the same thing. Quicker, faster, better, and shorter, and more enjoyable. So I'm not talking about medicine or law, I'm talking about IT. And dadka badankooda maxay dhigtaan markay jaamacadda ay tagaan business. How many people I met معناها oo ku dhahay maxaa soo dhigatay business, maxaa soo dhigatay biomedical, maxaa soo dhigatay things like that. I'm not talking about the core معناها subjects. If you do one of the core subjects like medicine or law or yeah, that's fine. Go to university. That's what you need. But if you're doing معناها other non-essential or non-core معناها subjects, there's no need معناها to waste time, money. So there are other ways to do معناها the same thing, and we're here to help inshallah. So waxaa samayn kartaa, you do A+ network, CCNA, CCNB, and after that you can go to third year university. It's not for everyone. Some people they start from second year, yeah. Some of them they start from third year. It depends on the person. But hopefully, of course, you can do that. And go to YouTube, معناها have a look, معناها videos we recorded about engineer معناها Ahmed and engineer Daher. Both of them waxay ahaayeen black cab drivers. Maxay sameeyeen? Taamkooday habeeyeen, yeah. Shaqaday qayb ka soo gooyeen, waxbay barteen, jaamacaday tageen, third year ay ka bilaabeen, waa ka soo qalin jibiyeen, yeah. Ayagoo shaqadoodana wata, yeah. And now they have degree. kaligoodna maaha dad badan asaas laakiin alxamdulilah iyaga way soo noqdeen dadka la hadleen waxay dhaheen guys we did and you can do it, and that's waxaan u baahanahay. Once you succeed in life you have to inspire other people and motivate your Somali community, and that's what I did basically. And well done guys, mashallah. So hadda intaa samaysid you can go to the third year and get a degree within short time. Another way to get a degree adduunka maanta ma aha kaliya black and white, yeah. Ma aha kaliya labo wado. There are many ways to get a degree. You can have full-time job, yeah, and also you can learn on site. I'm not talking about the courses, even I'm talking about universities, yeah. They offer weekend, they offer an evening, they offer معناها online system. So while you are working full-time in IT, yeah, in the meantime you can learn and get a degree. And dad badan oo saas sameeyna way joogaan ka baxay iskuulka. So one side they're working, building their profile. Another side they're learning and becoming more academic. So if you combine together you'll have a good baggage, mashallah. And hadda markaa wadanka dibadiisa aad tagtid you have experience and also you have a degree. Because wadamada qaarkood hadda in UK oo kale shahaado ma lagu weydiinayo. Marka hadda koorsooyinkan Afghanistan idin sheega hadda lagu leeyahay shaqa ku raadinaysaa uma baahnid inaad macnaha shahaado ka qaadatid. No. And no, when I say no I mean no. macnaha inaad shahaado qaadatid oo aad dhahdid I'm certified kadib aan shaqa raadinayaa, you don't need that. Don't waste your time. And also listen to the ardada ka hadashay topic la weydiiyey. What you need is the skills. Aqoonta u baahan tahay. So once you have the skills you can get a job even without having certification. A+, you need the knowledge. Network, you need the knowledge. Yes. Server, you're u baahan to all of them. But inaad imtixaan aad gashid ma u baahan tahay shahaada ka qaadatid? No. No matter how many times I say no, definitely there will be questions someone will ask معناها oh, do I need to get certification? Because that's they cannot swallow. They cannot take معناها that as a no. Because waxay ku leeyihiin see shaqo u helaya. But we know what we're talking about. And we have been here long enough, معناها more than 20 years. So you're lucky guys because waxa la idin siinayo waa summary of you معناها waxa u baahanaydan information. Yeah, something la soo diyaariyey, la soo jirciyey, la soo habeeyey, la soo naqshadeeyey, lagu leeyahay this is what you need معناها intan qaado aan ku dagaaltay ku shaqatay. Yes, hadda u baahato CCNA oo kale jaamacad you have to do CCNA exam, otherwise there's no way. CCNB you have to do the test, of course you need that. hadda u baahan tahay more advanced معناها roles oo kale
like cloud oo kale, security oo kale, yes waa u baahan tahay inaad qaadatid. So we will tell you waxa u baahan tahay inaad samaysid iyo waxaad u baahnayn. And alxamdulillah taa lafteeda waxay tahay faa'iido aad iyo aad u weyn. So how to get to us? We have a branch at Wajiban, at the Mission Jogo, and also we have a branch at Stonebridge. Yeah, and both of them are operational, and you can come to us. And we deliver the courses both locations. And hopefully in the short term, we're hoping to launch other places here in London and also outside of London. We'll let you know, inshallah, the details. If you need to email us, that's one of the emails you can reach through us. And if you want to call us, that's our number.